والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بره عبد الفتاح oo barihi shaashada idinka soo gudbin jiray afka Soomaaliga idin bari jiray hab wanaagsan oo aad u fahantaan isagoo idinka soo gudbinaya shaashada marka waxaan bilaabeynaa casharkeena maanta oo noqonaya taxanihii inuu soo wadnay casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay xuruuftii xaraf higaadeedkii aynu ku soo jirnay laguna darayay xuruufta shibanaha si ay jumladu inuu ku samayso macne inuu qaadan karno dhadhan yeelan kara marka waxaanu mareynay xarafka la kaasna waxaanu ku xigayaa ma oo shaqal dheer ma me mi mo ma me mi mo mu ما ayaynu qaadanayna ma waa dhawaaq xayawaaneed laakiin waa habigaadeed macna weyn ma sameeyo looda oo kale ma way tiraahdaa waa codkeedii iyada u gaarka ah waana ci baa la dhahaa marka ay loodu dhawaaqso banaaxina waa la dhahaa marka maxaynu oranaynaa inaynu xaraf ku darno way waxaynu ku darnay oo kale la markaynu ku darnay macnuhu inoo sameeyay maal buu noqday maal waa hanti bay la macnaa hantidu wax kasta noqon kara oo la yeelan karo daara noqon karo dhul baa noqon karo xoolo nool baa noqon karo dahab baa noqon karo lacag baa noqon karto hanti baa la isku dhaxay waxaynu kala qaadanaynaa me oo kana me markuu saa yahay me waa lagu dhawaaqi karaa me marka waa su'aal ka timaada jumlad la socota hebel me oo kala lagu yiri war cali meeda dambe sidaas ay ku samaysaa macna ha dhamayska tiran ee jumlada laakiin hadda inaynu xaraf ku darno si uu macna ka bedelan inuu ku sameeyo ayaan rabnaa maxaynu ku darnaa meel la baynu ku darnay meel bay noqotay meel marka maxaynu oranaynaa markuu meel wixii noqday waa inaynu garanaa waxa uu sameyn karo waxaynu oran karnaa meel waa goob bogcad berin waxaas kuwa iyo kuwa badan oo la mida ayaa meel ay la macnata waxaynu soo qaadanaynaa mi gaabaynu ku dar wuxuu noqday miig waa diyaaradihii dagaalka baan loo yiqiin oo la isticmaali jiray miiga la oran jiray diyaarada dagaal magaceed diyaarad dagaal haddii la dhaho miigan wuxuu noqonayaa adag ayuu la macno noqonaya waxaanu soo qaadanaynaa mo waa inaynu xaraf ku darnaa macno uu ku sameeyo mo
lee waa shaqal iyo shibana wada socda oo aan hadda macna sameeyay daa inuu ku dar waxaanu niri mood muxuu yahay hantida waxa loo qaybiyaa mood iyo nool wixii nool baa la dhahaa wixii aan noolayn oo ma noola ana mood baa la dhahaa waa manoolaha hantida ayaa la dhahaa manoolaha hantida ayaa la dhahaa mood waxaynu qaadanaynaa muu maxaan dhahnaa muu waa inaynu u samaynaa macne si xarafka aynu ku darno uu macne inuu ku sameeyo la inuu ku dar لا markii lagu daray wuxuu noqday mool waa biyo dadlaqa waa mool meel aad u hulan oo u dheer oo biyo ku jiraan oo wixii galaa aan ka soo bixi karin kana soo noqon karin oo la qaaya dadka ka ayaa la dhahaa mool waxa la dhahaa muul sorry waa qalad aku noqonaynaa mu waxaan ku dareynaa حرف معناه إنه كسمية أيه إنه كدرنا ومحين نوراننا قا إنه كدر موق معناه بحماه دا كدر موق وحما السمين لباش بنا وأن شغل كدم بين كان هورين لحدنا كتيرين معناه ما سمية دا إنه كدر موق دا ومعنى بوليه هاي أو وح ama la arkayo oo ishu qabanayso ayaa la dhaxdaa muuqda ma muuqdo iyo waa muuqda labadaas loo kala isticmaalo waxa la arkayo waxaan la arkay marka muuqda waa aragnaa waxaas weey waxaanu ku xijinaynaa ada oo shaqalkeena gaaban oo la socda maada oo inuu jumlad gelinayno sidaan hadda kuwa u gelin waxaanu oranaynaa ما مي مو مي مو ayaan oranayna marka waxaan soo qaadanaynaa ma atan oo shaqal gaaban oo ما marka waa inaan wax gelinaa si ay macna inuu ku samayso oo in uu qaadano macna mal la baynu gelina mal bay noqoto malku wuxuu noqdaa xayawaanka yar ama noolaha markay dhashaan oo caanaha cabaan waxa ugu horeeya oo dabadooda ka yimaada ayaa la dhahaa malka dhabta ahi waa sida ereyga macnihiisu saasoo noqonaya haday tahay xayawaan iyo haday yahay dad waxa ugu horeeya oo ka yimaada xagga dambe mal baa la dhahaa waxaan kala qaadanaynaa ما waa inaynu xarafkan ina anfaca ku darna nuucu doonaha noqday si uu macna inuu ku sameeyo ها إنه كدر مه وحاول ما سمين إيه إنه كدر مه وحاول ما سمين راء كدر معنو إنه سمي معوية معناه سمي وحول نقضي مهر إيو النكاح واسكو هل ولا مهرية قبدي إيو ولا النكاحي هل معناه ولا سمية نكاح وعربي
nikaax waa carabi laakiin waa erey inuu inta badan isticmaalno nikaax waxaynu kala qaadanaynaa xarafka mi kaligii intaasu macna ma samayso laakiin waa inuu macna inoo sameeyo na inoo ku dar min muxuu yahay min waa mid ka mida faalka la isticmaalo oo waagii hore la isticmaali jiray xilliga dagaalada lagu jiro inta badan iyo xilliga saadaasha wax la saadaalinayo minan wax la dhaho oo magacyo ay ula baxeen ayaa min la oran jiray laakiin macnuhu intaasu inama anfacdee waa inaynu kordhinaa da ku dar min ma iyo na iyo da aan wax ka dambayn ma dhawaaq ma samayn inuu ku dar mindi buu noqday mindi waa macna buuxuu inoo sameeyey maxay tahay waa tan wax lagu jarjaro looguna googoosto oo aynu wax ku qalanno ayaa mindi la dhahay af kale waxaynu soo qaadanaynaa mo marka maxaynu tahay mo waa inay macna inoo samaysaa markaynu xaraf kale ku darno oo maxaynu ku darnaa si ay macno fiican inoo ku samayso waxaynu ku dareennaa maq waxaa ma samayn oona inoo ku dar maqo iyana waa silsile raa inoo ku dar waxay noqotay maqor waa dhirta dhexda laga dalooliyo malabka dhurdaha la dhaho oo yar uu sameeyo ayaa la dhahaa maqor waxa kaloo la dhahaa qaanqaani meesha marka qaanqaanidaasu gasho oo dhurduhu malabka geliyo ayaa la dhahaa maqor biyahana gala waana laga cabaa xilliga dhulku uu manaha yahay ayaa dadku hawdka inta badan ku badbaadaan markaas waxa la dhahaa maqor geedkaas la dhahaa godkaas la dhahaa waxaynu qaadanaynaa mo baynu qaadanaa mo waa inaan wax ku darsanna si uu macna buuxa inuu ku sameeyo oo ina anfaca waxaynu gelinay ra mur kaligii wax ma sameeyo uu ku dar murug iyana wax ma sameeyo ga inuu ku dar murug ayuu noqday murug muxuu yahay haddii murugo la dhaho oo lagu daro macno kale uu sameynaya haddii murug la dhahana isla macnihii laakiin oo fal iyo falkaaba buu kala baxaya wuxuu noqonayaa murugo waa warwar iyo walaac qofka ku abuurma wax soo maray ama wax soo socda uu ka murugoodo inta badanna waxa uu filayo ayaa murugada keena qaabka wax u filayo ayay ku xiran tahay murugadu waa wax aad ka qabto warwar iyo walaac qalbigaagu u gadgadoomayo marka casharkeena maanta wuxuu inoo joogayaa halka insha Allah bidnillaahi kariim inta aynu ka gaareyno casharkan ku xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته